bismillaahi raxmaan raxiim maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaan qisaastay waan ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukuumanay ahaayeen dilka maanta lagu wada fuliyay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka iyo annaka waana la hubinayaa 10 cisho codsiga waxaa wada dhibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas nimankii caasho dilay waa wada yaqaanay daris baanu ahayn waan wada hadalnay xataa waa iscafinay عفس بيجا دلبدين. يجو تير جارج سارن قال شراه. آخرهم ورتيرا بانكوير. تير كان الجي وانا اللي دري. وبتشوق وانا حتى أمريكا النتين لون تيجي عن توا كتات. ساست أنا قاف شني. ولده هاي ترفيش هذا اللي يري. ترين كي قاعد ياد بفعين هاي سمالوين نوام هذين هيا تتكيدن بجاز كلي عاشي اللي أساسا كجلي وقال توكتي لونين. النوادم بيها. وطبعا عشاء حيرنانيا كيس كان waxaa laga baranaya 10 xoog leed gabdhaha Soomaaliyeed waa badbaadahayaan oo dhacay kiiskan waana la badbaadahaya ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood